halkani waa Gaacir Media dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee GaacirMediaTube. barnaamijka wixii cusub ee GaacirMediaTube waxaad ku maqli doontaan Ruushka oo sheegay sanadka 2022 ciidamadiisa badda inuu ku qalabayn doono gantal Ruushka oo sheegay sanadka 2022 ciidamadooda badda inay ku qalabayn doonaan gantal hypersonic. madaxweynaha Ruushka Mr. Putin mar uu ka hadlayay telefishinka wadankiisa ayuu sheegay in tijaabada gantalka Gaacir ee hypersonic tijaabadiisa lagu guuleystay uuna gabagabo marayo kadibna ay ku qalabayn doonaan ciidamadooda badda sanadka 2022. dhaqaaqan ayaa la sheegay maalintii Arbacada 3 bishii November 2021 in Moscow ku muujinayso tartanka iyada iyo Mareykanka kala dhexeeya iyo sidoo kale tanina inay caddeyn u tahay in Moscow samaysatay gantaalo casri ah oo aan la arki karin cidna aysan qaban karin. waa markii ugu horeysay uu Ruushka tijaabiyo gantaalo Gaacir ee dhinaca gudashada badda. Putin oo hadalkiisa sii wata ayay si gaar ah ay muhiim u tahay in la horumariyo lana fuliyo teknoolajiyada muhiimka ah si loo sameeyo nidaamka hubka cusub ee hypersonic laysaro quwadooda sareyso iyo nidaamka robootka taasoo awood noo siinayso in aan iska difaacno halisaha militari. Tanna waxay xoojinaysaa awoodda amniga wadankeena. gantaalka Gaacir ee hypersonic wuxuu soconayaa 5 jibaar xawaaraha jabaqda hawada sare dhexdeeda ama 6200 kilomitir saacadii. warbixinta ayaa intaa ku daraysa in gantaalkani haddii biyaha hoostooda laga soo rido iyo haddii markab korkiisa laga soo ridaba in bartilmaameedkiisa si toos ah uu lishaamayo ama uu u gaarayo. khubarada reer galbeedka ayaa su'aal ka keenay hubkan casriga ah ee jiilka cusub ee uu Ruushka samaystay iyadoo la wada ogyahay isku dhafka xawaaraha, baaxadda tababarka ciidamada badda iyo qaabka hawada sare ugu duulay gantaalkani hypersonic waxay ka dhigaysaa in ay adkaato sidii lagu ogaan lahaa xogta gantaalka iyo in ay adag tahay sidii looga hortagi lahaa ama la iskaga difaaci lahaa gantaalkan. Pentagon-ka wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay bishii Oktoobar in ay rabto in qandaraaslayaasha difaaca ay dhimaan qiimaha iyo qarashka ay ku soo saaraan ama ay ku sameeyaan hubka hypersonic taasoo haddana la wada ogyahay gantaalada xawaaraha degdega ama xawaaraha aad ku sareeya ku socda ee dhawaan lasoo saaray inay ku baxday $10 milyan. waxaa xusid mudan bishii tagtay ee Sebtembar dowladda Kuuriyada Waqooyi in ay soo saartay gantaal hypersonic daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena sharafta mudan. intaa waxaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee GaacirMediaTube. intaa mar kale ku kulmi doono nabadgelyo.